ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. qodobada xiisaha badan ee aad daawan doontaan xilligaana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. ciidamada dawladda Soomaaliya oo gacanta ku dhigay qarax iyo dadkii waday. madaxweyne Muuse Biixi oo shaaciyay xogo qarsoon oo ku saabsan safarkiisii uu ku tagay dalka Guinea. macluumaad ku saabsan haweeneydii ragga iska dhigtay ee lagu qabtay magaalada Gaalkacyo iyo deegaanka ay u dhalatay oo la shaaciyay. Puntland oo goob fagaaraha ku gubtay qamri laga keenay dalka Ethiopia. baarlamaanka Puntland oo qaaday tallaabo ka dhan ah Somaliland. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Somaliland oo eedan u jeediyay madaxweyne Farmaajo iyo mas'uuliyiin kale. iyo qodobada kale ee nagu soo kordhay intaan warka ku guda jirno ayaan idin la wadaagi doonaa insha Allah. intaas daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu doorka roon. waa 9 bisha Juulaay 2019 iminkana u diyaar garooba warkii oo intaasi ka faahfaahsan. macluumaad ku saabsan gabadhii ragga iska dhigtay ee lagu qabtay magaalada Gaalkacyo halka ay u dhalatay iyo sidoo kale marunba in waxyaabaha lagu eedeeyay oo dhan ay iyada leedahay dambigeeda iyo qodobo kale ayaan gordhow eegi doonaa balse markan Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay gelinkii dambe waxay gaareen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib markii safar dhanka dhulka ay ku mareen. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa wafdigiisa waxaa halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay xildhibaano, wasiirro iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug iyo boqolaal dadweyne ah. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa fagaara la isugu keenay shacabka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo waxa uu kala hadlay arrimo dhowr ah. sidoo kale waxaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre uu kulamo gaar ah ka bilaabay magaaladaasi Gaalkacyo ee gobolka Mudug. kulamada intooda badan waxaa diiradda lagu saaray dhibaatooyinka amni ee ka jira magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan nabadgelyada gobolka Mudug. waa kan Ra'iisul Wasaare Khayre oo si kooban ula hadlay dadweynaha ku dhaqan magaalada Gaalkacyo. ku dhawaad 30 sano ayay dadka Soomaaliyeed dib soo arkeen, idinkuna aad qayb ka ahaydeen in dadka Soomaaliyeed dib la isugu keeno. midnimada ummadda Soomaaliyeed waa muqaddas. Gaalkacyana waxaan leenahay waxaa tahay laf dhabarka dadka Soomaaliyeed taariikh ahaan. waagii hore iyo haddaba waxaan idinkugu yeeraynaa markaa doorkiinnii hore oo weli taagan si ummadda Soomaaliyeed horumarka ay bilowday ay uga mari dhaliso. dalku waa inuu dib u heshiisiin galaa. dalku waa inuu helaa nidaam horumareed oo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan u adeegaya. sidaas daraaddeed ayaa socdaalkeennu wuxuu ku salaysnaa in la helo nidaam Galmudug tii aad soo bilowdeen oo dhammaystiran. sidaas daraaddeed waxaan rajaynayaa inaad noo oggolaataan inaan idinla dhammaystirno maamul goboleed Galmudug ah oo loo dhisay si furan, cadaalad ah, qof walba xuquuqdiisa uu ka helo, qofna aanu sadbursi ku samayn qof kale. waxaa kaloo aan adigu faraxsanahay halkan dib u heshiisiintii ka dhaxday ciidamadii isku dhafka ahaa oo markii madaxweynuhu yimid laga hirgeliyey inay weli shaqaynayaan. waxaanu imid iyadana inaan sii dhammaystirno, sii xoojiyo, wax walba oo agab ah oo ka maqanna loo hagaajiyo haddii Ilaahay yiraahdo. macluumaadiyadaas iyo waxyaabaha ka soo kordhay safarka Ra'iisul Wasaaraha uu ku tagay magaalada Gaalkacyo iyo arrimo kale oo dhowrna wararkayaga dambe ayaad ku daawan doontaan balse markan ciidamada ammaanka ee ka howlgala magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegeen inay qabteen 4 ruux iyo qarax ay wadeen. dadka lagu qabtay qaraxyada ayaa waxa la sheegay inay ku dhex qariyeen qaraxaasi jawaan galey ay ku jirtay sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka ammaanka ee ku sugan magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. dadka lagu qabtay qaraxaasi ayaa la sheegay inay ahaayeen 4 ruux, waxaana 2 ka mid ah la sheegay inay ahaayeen dumar oo mid ay uur lahayd sida warbixinada lagu helayo, halka 2 kalena ay rag ahaayeen. sidaani oo kale ayaa toddobaadkii hore waxaa ciidamada bar control oo laga gala degmada Marka ay ku qabteen gaari dameer qudaar siday oo lagu soo dhex qariyay waxyaabaha qarxa, waxaana la sheegay inay waday haweeney si weyn loogu yaqaanay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ka ganacsan jirtay qudaarta. ciidamada ammaanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay magaaladaasi Marka waxay ka bilaabeen baaritaano ammaanka lagu xaqiijinayo si looga hortago waxyaabaha qarxa oo gudaha magaalada la geliyo si loogu weeraro xarumaha dawladda ee ku yaala magaalada Marka. markan aan eegno sheekooyinkaas oo dhan ka duwan oo ku saabsan macluumaad dheeri ah oo laga helayo gabadhii lagu qabtay magaalada Gaalkacyo. warar dheeraad ah ayaa waxa ay helaysaa shabakada wararka maanta taasoo ku aadan reer ahaan halka ay kasoo jeedo gabadhaasi.
shabakada wararka maanta ayaa baaritaano dheeraada waxay ku samaysay gabadha lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug taas oo lagu eedeeyey in ay rag iska dhigtay. ciidamada ammaanka ayaa maalin ka hor haweeneydan waxay ku qabteen magaalada gaalkacyo. shabakada wararka maanta waxay ogaatay in haweeneydan ay kasoo jeedo degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud, waxaana deegaanka looga yaqaanay Deeqa Calooley, iyadoo si weyn looga garanaya xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi. dadka deegaanka ayaa warbaahinta waxay u xaqiijiyeen in haweeneydan ay markeedii horeba ay ahayd dadka aan sidaasi ugu dhex badnayn ku dhex jiritaanka dumarka oo waxay saaxiibo la ahayd ragga. waxaa kaloo la sheegay in markii ay ku sugnayd magaalada Cabudwaaq mararka qaarkeed telefoonada ay dumarka ay kula xiriiri jirtay iyadoo la hasaawi jirtay, laakiin caafimaad ahaan aad ayay uga wanaagsaneyd sida hadda lagu soo qabtay sida dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen. waxa ay sheegeen in bilooyin ka hor laga waayay magaalada gaalkacyana ay u gudubtay, iyada oo halkaasina markii dambe markii dhacdadan la maqlay ay aad dadka uga yaabeen. xiriiro kala duwan oo la sameynay ehelada gabadhan ayaa sidoo kale waxay xaqiijiyeen inaanay jirin in gabadhan ay guursatay gabdho kale islamarkaana wax loo dhalay. waxa ay sheegeen in markeedii hore ay canuga ay dhashay islamarkaana uu ka saqiiray, sidoo kalena inaanay jirin dhibaatada iminka lagu tuhmayo. gabadhan oo ku nooleed magaalada gaalkacyo ayaa la sheegay in ay badbaadinaysay gabadh kale oo sidatay canug wicil ahaa, laakiin markii dambe aan la garanaynin siday wax isu bedeleen. mid ka mid ah ehelkeeda oo dumar ahaa ayaa si kooban waxa ay ugu warantay Master Shiine Culay. walaalo waan dhawahay saa sheegtay gabadha magaceeda waxaa la yiraahdaa Deeqa Cabdullaahi Aadan. gabadha waxay ku dhalatay soo jeeda Galgaduud gaar ahaan degmada Cabudwaaq. waa gabar mareexaana garanaysaa degmo walba qabiil baa ku magacaaban. gabadha mareexaana waxayna ku dhalatay wax barasheed qaadatay oo dadka deegaankaasna si fiican u garanayaan. Cabudwaaq 2014 salay baa ugu dambeysay. intaysan Cabudwaaq 2014 ka soo tagin Cabudwaaq maxay ku haysatay? Cabudwaaq gabar waxay ahayd dadkeedii deegaankeedii dhex joogta, gabar ku shaqaysatay ahayd, gabar waxay ahayd horeyna ugu guursatay oo meesha dadka jooga dhan ay garanayaan. si kastoo horta ha ahaato qof waxay ahayd oo iska ragga dhinacooda asxaabteeda ragga u badnaayeen sida ragga u labisan jirtay, laakiin gabar waxay ahayd iyada la guursaday oo hooyo ah oo reer haysata. inkastoo cunugeedii ka saqiiray wiilkees guursadeen, hal wiil baa Ilaahay kala siiyey, wiilkiina waa ka saqiiray, wiilkaasna way kala tageen. laakiin Cabudwaaq waxay gabar meherad bay ku haysatay, meeshaasay deganeed. kadib wiilkii yarka ahaa ay haysatay baa ka dhintay, kadibna Cabudwaaq way ka soo hayaantay gaalkacyo soo wareegtay. hadalladaada waxaa ka mid ah gabar oo ragga asxaab badan ku leh, arrintaa maxaa ula jeedaa haddaa noo faahfaahiso? waxaan ula jeedaa oo dadku hubbi bay leeyihiin. gabadhan waa gabar horta qof nin iyo naag Ilaahay waa kala saaray. gabadhan waa gabar dumar ah, laakiin waxay u labisan jirtay sida inay rag tahay oo kale. nin bay iska dhigi jirtay, nin bay u labisan jirtay, hub bay wadan jirtay. iyadoo Cabudwaaq joogta mar hore waxay wadan jirtay toorey, mar waxay wadan jirtay baaskoolad. dadka Cabudwaaq jooga dhalinyaradeedana aad iyo aad bay u garanayaan. marka gabadhan saas weeye walaal, qof dumar weeye, laakiin ragga bay asxaab waxay jeclayd inay ragga weligeed qof dumar saaxiib lama noqon, ragga xaggooda ku badnayd. marka labiska aad sheegayso ma macuus iyo shaati iyo surwaal iyo bixiran jirtay oo sidii nin bay u labisan jirtay? maya waxay xiran jirtay goono xiran jirtay iyo shaab iyo khamaar. damacoo kale ama ka geli jiray haasaawe iyo waxyaaba la midka ah dumarka waxa weeye arrimahaas ma dhex mari jiray? tuhmadaasi ma jireen? walaalow anigu ma maqal dumar bay shaqaysatay guursatay, laakiin gabar waxay ahayd oo ragga isaga dhex jirta oo ragga haddii heblaaya camal qoftas waa xirantaasaan waaye camal oo iyada dhanba xagga dumarkaan jirin oo ragga la jirtaa. laakiin wax ay shaqaysatay iyo waxay dumar la haasawday dee maxay meeshay joogtay waxay ahayd meel inaayaheedii iyo markay dhalatay iyo hooyadeed iyo firkeedii iyo faraceedii la garanayo, meel ay qof shaqaysan karto iyo qof ay hawaysan karto mabay jooginba. qaab noocee uu dhacay? muddo intee leeg bay isqabeen? awlaad Ilaahay ma kala siiyey? walaalow arooskooda wuxuu dhacay taariikh 2004 bay guursatay. wiilka iyagaa isukaasadeen, wiil isaguna deegaankaabu ahaa, iyagaa iskeensadeen. aroos caadiyo arooskii deegaankaas markaa laga dhigin jiray baa u dhacay. Ilaahay wiilku kala siiyey muddo 4 sano ilaa 3 sanona way isqabeen, kadibna way kala tageen. muddadaa wixii ka dambeeyay xiriirkiinu sidee ahaa? qoyska qaab noocaa bay ugu xirnayd? halkeese baa idinku dambeysay?
deeqo waa lala xiriiri jiray markay tagaysay waa looga 2012 kiiba cunugaas oo wiilkaas ay isguursadeen ilaahay kala siiyay 2012 kiiba ka saqiiray markay ka saqiiray 2 sano ka bacdi bay joogtay caabadu waa way ka soo tagtay gaalkacyo markaas waxay joogtay daantan dhinacan kale waa garanaysaa Soomaalidu qabiil bay meel ku degaan gabadha meesha sokay joogtay dhinacan Puntland meherad bay ka furatay gaari bay ka gadatay meeshaasay ku lamid oo ku wanaagsaneed halkaas noogu wardambeysay ayadoo deeqa iyo meherad haysato u ladan tahay ma sha Allah oo deeqa noo anaga marka muddadii ay koonfurta gaalkacyo u guurtay warbixin intee leeg baa ka hayseen xiriirkiinu see ahaa maxay halka ku qabtay oo ku haystay walaalo gabadhan 2016 say meeshan agar weyn meel la dhahayo gaalkacyo kamid ah say u degnayd meherad ugu haysatay 2016 baa gabadhaas meeshaas ay ka guurtay waxa la yiri habeen baa dad u yimaadeen dad markii ugu dambeeyay warkeeda hayay waxay dhaheen wiilal ba mid halkaas iska raaceen raxla bay saas ku gashay kadib qof muuqeeda arka lama arag laakiin hadalkeeda way soo hadli jirtay markii wax u baahato waxa qarashkaas u baahanay waa xanuunsanahay hal la soo xiriiro lacag baa loo jiray laakiin ayadu markay soo hadasho mooyaane qof ka warqaba oo arkay ma jirin ma fahantay waa gartay marka idin la soo hadlayso oo gaalkacyo dhinacii koonfurtan jooga ay idin lahayd muddada 2 sano ah nolosheedu waa sidee bay tiri cidda ma isguursadeen ma jirtay oo ay maxaa ku raadayay nima kale oo guursaday oo kale ma idin sheegtay maxay nolol maalmeedkeeda ka dhacsan jirto halka ku haystay meeshaasaan deganahay waxaa jirta horta Soomaalidu iyo qabiil hay jiro laakiin qabiil walba waxba la isku yahay gabadhaas qabiilka meeshaas degan sacad baa waxa uu yiri reewawe marka waxay dhigi jirtay reewowgay baan la joogaa kaasaan deganaan annagana markaan qabiilka ehladeena ah oo dhinaca kala jooga markaan la hadalno war gabadhaas war kama hayno meeshaas ay joogtaa bay dhahan ayaduna wax nolosheeda ay ka faahfaahin jirtay ma jirto meel baan deganaan bay dhigi jirtay dukaan baa meel ku haysta waayo anagu waxaan filay jirnay waxaan ku ogeyn inay hanti haysatay oo shaqaysanaysay marka waxay noogu sheekayn jirtay mar shaqadii mar waxa jirtay oo tiri waxba la iga dhacay waxba sidana marka gabadhan anaga nolosheeda dhabta kama warqabin laakiin dhowrkii bilba mar isla hadli jirtay waxaas iga dhiman waxaas la soo diro laakiin qof arkay ama meel ay ku sugan tahay xaaladeeda dhabta ka warqabay muuna jirin wala haday waxaan moodayay in ay ugu tiri nin kala guursaday oo ilmo ay u dhashay ma jirtaa inuu guursaday nin kale oo ninkii maxaa ku dhahay reer caabud waaq ahaa ka dameeyay oo ilmihii u dhashay ilmihii ninka uu ka dhintay guur kale oo labaad oo ay martay miyuu jiray yes ayada waxay noo sheegtay intaysan meeshaas qadka meeshaas aysan tagin galmudug ka hor wiil bay guursatay oo gobolada waqooyiga wiil ka tagay bay guursadeen wiil baa ilaahay ka siiyay wiilkii dad bay u dhiibatay walaasheed ka weyn oo ayada wiilkeeda horan u soo korisay ayadana gacanta ku haysay waligeed oo caabud waa dadban bay wiilkeeda u geysatay ma fahantay wiilkeeda uu nool yahay wiil bay haysataa wiilkan waqooyiga u dhashay walaasheed ka waqooyi marka leedahay beelo badan baa ku nool ma la idin sheegay cidda oo maartay qabiil ahaan uu ka soo jeedo wiilka in la xiriiday oo deeqo markii dambe ay u dhacday wala loo sheegay saq weeyaan wiilka ka annagana haysana walaasheeda gacanta ku haysa waa yahay walaalo waxay hadaaye ii sheegeen inay aaminsan yihiin gabadhu inay maaragtay maskax ahaan ay u xanuunsanayso oo aysan ahayn qof dhammaystiran hadda xaaladeedu wixii ka dameeyay markii wiilkeeda ay barkadu laqdayna ay qalbadu jabtay oo xaaladeeda caafimaad ay maxaa ku raacday mar walba tuhunkaasi jiray arrinta oo kale maxaa nooga faahfaahinaysaa ma qabtaan tuhun ah oo adigu sida walaalo ii sheegay gabadha inay maskaxiyan u waalan tahay walaalo si weyn horta isma waqarisaba xaqiiqadu qofka arkaysay sawirkiisa anaguna waan qof kasto Soomaaliya oo qof kasto bini'aadanimada fahmaya oo maskax caafimaad qabto ku jirto qofkii sawirkiisa arkaynay inuu xanuunsan yahay dhimir ahaan iyo jir ahaan iyo maskaxaan iyo qalbi ahaan inuu xanuunsan yahay qof kaste oo sawirkeedii muuqaalkeedii arkay uu ka dheehan karaa annaguna tuunkaas waa aaminsanay waan rumaysanay inay xanuunsan tahay dhimir ahaan iyo qalbi ahaan iyo maskaxaanba waa yahay gabadha waxaa jirta deeqo eedeymaa loo soo jeediyay waxaa la sheegay inay magaca deeq magaalada gaalkacyo ku joogtay
inay maxaa ku dhahdaa ay jiraan dumar ay la macaamili jirtay oo qaarkood sida la sheegayo ay guursatayba oo ay ahayd qof timi iska xiirtay qaab rag u labisanaysa dukaan haysata nin caadiya magaalada ku joogtay arrintaas waxa weeye maxaa ka leedihiin haddaa qoyska tihiin taniyo waxa fiican Soomaalidu sideedaba waxay jeceshahay inay wax buubuuniso oo wax eebeyso oo wax faasharto laakiin xaqiiqada marna inay ogaadaan ma jecla qof meesha la joogo waa Soomaaliyana waxaas oo kale waxay ka soo roodaan ma jirto naag guursan karta iyo naag u hawoon karta iyo naag inta xitaa kuwa isqasadaday jiraan naag u bareerta oo la garanayo inta meel la degta waliba hal naag ma ahayd كون ناق أنت اللي بورسته ولا علينا معقولة هاي وعقل بالآدم كقلي ولا وشيدا قفتان ضد باسيدا وقلي ضد كمركي ورا ماشي أي لتشوك توك حيستي باسيدا وقلي كدبنا مركي مدا موجي واحد اسكو قبتين مركي دنتودي كجارين أما أي واحد كل شيء اسكو أفجروا وعينا كورنا يجا حبس الجيو ماشي الجي أنا قلنا وحن للي وحبي بورسته أنا قد دقيقة نوتاي كورنا اسمها نودا شيء نوتاي كور مرنا ما aansanayn inay dad guursadeen ma fahamta ayadana loo guursadaa anaga laakiin hadii ay jirto oo macquul tahay in ay ayadu waxa samaysayna adduunkan iyo cadeyn baa lagu kala baxaa waxa jirta dumarkii ay guursatay ayagu dambiga waxbay ka leeyihiin haday dumar guursatay waa in inta la keeno faadimo iyo farxiyo hadla inta la keeno waa in la yiraahdo hablaayi gabadhan guursatay ma fahamta laakiin ma bahaynaba dadkaas hadda waxay guursatay waa in hadii ay jirto oo ay waxay ku soo eedeeyeen ay wax macquul ah runtahay waa inay noo keenaan wax cadeyn ah oo baaritaan run ah noo sheegaan haday ayagu waxay sheegayaan ay dhab ka dhiganayaan ma aragteen oo adigu shakhsiyan ma daawatay muuqaalka laga soo duubay markay hadlayso waxyaabaha cadeynta oo meesha la soo dhigay oo la yiri waa adeegsan jirtay waxyaabaha anoo ka xun inaad qoyski tihiin oo de idin waxyaabahaas hoose rabin inaad gashaan waxyaabaha ma aragteen hadda aragteense wax macquul ah ma idin la noqotay oo suurtagal gali kara shakiga marna suuraha marna ma idin soo gaaray shakiga marna ma idin galay may marna shakigaasna ma gali waxa bini'aadamku markay qofka wax ku eedeeyaan Soomaalida horta sideedaba waxa jirta wax ay dhahay qabiil ma fahamtay gabadhan qabiilka meesha waxa anagu maqalnay hadda markay meesha joogtay qabiilkeedii ay sheegan jireen oo qabiil reer awowgeed inay sheegan jirtay waxa hadda uu tuhun maqalnay markay qabiilkeedii ogaadeena inay inta dhahan gabadhan hubay wadataa waxaasay wadataa inay xabsiga keeneen marka markii wax la duubayana walaalo oo wax qofka lagu soo bandhigayo wax oo markaas qofku watay maahane qofka timaha markaas laga xiri karaa darka markaas u xiri karaan waxana ay dhahan qalab nin weeyana ayagu sameeyaan ana ayadu wadatay qofka keeyaan anagu ma cadeyn ma haysano in ayadu wadatay iyo in ayadu nin ku wadatay ma fahamtay qof dumar ah oo ilaa hadda inta soo istaagay gabadhan waxaan ugu qabtay yirina ilaa hadda ma hayna marka cadeyn ma haysanay maxaa ku rumaysan markana aan eegno Somaliland madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay safarkii wafdiga uu hogaaminayay ee ku tageen caasimadda dalka Guinea ee Conakry Muuse Biixi oo shalay khudbad u jeediyay dadweyne badan oo ku soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ayaa kaga warbixiyay waxyaabihii u soo qabsoomay safaradii uu ku tagay dalalka Ethiopia iyo Guinea Muuse Biixi ayaa waxa uu sheegay in dawladda Guinea ay ka aqbashay inay midowga Afrika eegayso qadiyadda gooniisataga Somaliland waxa uu yiri wafdi aan hogaaminaya ayaa socdaal rasmi ah waxay ku mareen dalka la yiraahdo Guinea Conakry oo Faransiiska uu gumeystay waxaana uu sheegay in sidoo kale ay sii mareen dalka Ethiopia iyagoo labadaba ay kala wada hadleen sidii wax wanaagsan ay ugu qabsoomi lahaayeen sidoo hadalka u dhigay sidoo kale Muuse Biixi ayaa waxa uu sheegay in 24 saacadood uu ku sugnaa dalka Ethiopia isla markaana uu kala hadlay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Ethiopia sida wasiirka arrimaha dibadda iyo midka maaliyadda oo ay telefoonka ay kala wada hadleen sidoo kale waxa uu sheegay in taliyaha cusub ee ciidamada Ethiopia oo dhan inay la hadleen taasina waxay muujisay milgaha iyo sidoo kale qadarinta Somaliland loo hayo sidoo hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in ay ka hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan sidii aqoonsi u heli lahaayeen Somaliland isla markaana ay kaga heli lahaayeen wadamada midowga Afrika wararkii ugu dambeeyay shabakada wararka maanta oo aad kala socoteen waa naga inta warkan intaan ku kulmi doona nabadgelyo